السلام عليكم صاحبيال isku soo noqod wanaagsan waa anigoo ah Dr. Baja waan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan leh aad igu xiran tihiin markastana aad ii dhiirigelisaan soo dhawaada saaxiibayaal markale iyo muuqaal cusub hadii ay tahay markay kuugu horeysay aad soo booqato Facebook page-kayga Dr. Baja Smart fadlan ii share garay muuqaalkan si dadyo badan u gaaro barnaamijta ama muuqaalada xiisaha leh aan halkan idin kula wadaago dhiirigelinaya maanta waxaan idin wadaa muuqaal kale aad u xiiso badan kafeyga ama qaxwe ama bunka waa cabitaan sida shaaha oo kale loo sameeyo wuxuuna kamid yahay cabitaanada dunida sida weyn loogu isticmaalo gaar ahaan dalalka uu ka bixiyo kuwa caalamka kafeygu waa midho la jajabiyo oo biyo kulul lagu kariyo sidoo kale waxaa jira mid qabow bunku waa cabitaan kamid ah cuntada kaas oo laga sameeyo midhaha geedka bunka hadaba maxaad ka taqaanaa taariikhda geedka bunka asalkiis halkee ayuu ka yimid geedka bunka wuxuu asal ahaan ka yimid dalka Yemen halkaas oo lagu cabi jiray qiyaastii qarnigii 15aad waxaana geedkan lagu magacaabaa coffee ama cafe maanta waxa soo saara in ka badan 70 dolooyintooda u badan deegaan ahaan gobolada dhulbadhaha ee u dhaxeeya labada Ameerika koonfurta iyo waqooyiga Ameerika koonfurta Aasiya Hindiya iyo wadamo badan oo qaaradda Afrika kamida marka midhaha kafeygu ka soo go'o geedkiisa ay bislaadaan ayaa la qalajiyaa oo la jajabiyaa ilaa la baceeyo oo loo dhoofiyo dunida oo dhan caalamka maanta aynu ku noolnahay bunka si joogto ah ayaa looga isticmaalaa meelo badan sida awgeed wuxuu noqday caan wuxuuna ku biiray nolol maalmeedka dalal iyo dadyo badan faa'iidooyinka caafimaad ee bunka waxaa kamid ah 1 hurdada subaxdii ayuu caajiskeeda ka bi'inayaa 2 wuxuu xaqiijinayaa xoogaaga iyo awoodaada 3 bunku wuxuu ka caawinayaa madax xanuunka 4 wuxuu ka caawinayaa kolestaroolka inaad saarto 5 wuxuu hoos u dhigaa buurnida ku jirta cabitaanada kale 6 wuxuu ka caawinayaa inaad shaqo adag qabato 7 wuxuu ka caawinayaa wareegga dhiiggu inuu si fiican u shaqeeyo 8 wuxuu ka ilaalinayaa qabowga degdega ah 9 kafeygu wuxuu ka caawinayaa bixitaanka timaha 10 wuxuu ilaalinayaa caafimaadka xasuusta maskaxdaada 11 wuxuu ilaalinayaa caafimaadka ilkaha 12 wuxuu la dagaalamaa xanuunada keena waalida 13 sidoo kale wuxuu ka hortag u yahay lana dagaalamo isku buuqa 14 wuxuu kala hoos u dhigaa stresska iyo warwarka 15 wuxuu u wanaagsan yahay caafimaadka maqaarka 16 wuxuu hoos u dhigaa xanuunada caadada dumarka 17 wuxuu badiyaa shahwada iyo manida wax kasta oo Ilaahay dunidan ku abuuray waxay u baahan yihiin inaan ka faa'iideysano inagu ku talax tagin isla markaana talooyinka caafimaad waxay inoo sheegayaan inaan si xad dhaaf ah loo isticmaalin wax kasta ay qiyaas lagu socdo